halkan waraanka wararka daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada aad warkan ku daawan doontaan waxaa kamid ah ammaanka Kismaayo aad loo adkeeyay Axmed Madoobe oo ciidamo Trabeela soo dhoobay garoonka diyaaradaha iyo dekedda xiray madaxweynaha Jubbaland oo amray in si degdeg ah wax looga qabto amniga magaalada isla markaana laga saaro ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin militariga Soomaaliya ku sugnaa xiriir ku yaala duleedka magaalada Kismaayo isagoo sheegay in laga fogeeyo magaalada warbixinayaan kaga haynaa waxaan sidoo kale eegi doonaa madaxweynaha maamulka Puntland oo Kismaayo ku wajahan sidoo kale waxaa tagi doona xubnaha mucaaradku ay ku jiraan Sheekh Shariif Farmaajo Xasan Cali Kheyre Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale oo ku jira Saacid warkana aad ku daawan doontaan waxaan sidoo kale eegi doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo arintaasi ka walaacsan u dhoofay dalka Qatar halkaas uu kaga sii gudbi doono magaalada Qaahira ee wadankaasi Masar halkaas uu kaalmo weydiisan doono madaxweynaha dalka Masar xilli Masaaridu ay sheegeen in markaasi Soomaaliya ay garab weydiisatay waxaan sidoo kale eegi doonaa Turkiga oo sheegay inuu caqabado waaweyn ay ku haystaan gudaha Soomaaliya taas oo hoos u dhigaysa wada shaqeynta labada dal warbixinayeen kaga hayaa waxay yihiin wararka ugu dambeeyay daawadayaal u diyaar garooba inuu ku bilownay Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe ayaa amray in la adkeeyo magaalada amnigeeda sidaas oo kalena waxay tahay in qorshahaas laga wada shaqeeyo isbedel amnina la gaarsiiyo magaalada inta shirarku ka socdaan sidaas oo kalena ay tahay isbedel sax ah ayaa muhiim u ah sidaas oo kalena dadka qaarkood ay leeyihiin isbedel siyaasadeed ay u noqon doonaan dadka qaarkood ay ka hadlayaan halkan isbedelkeeda waxayna u muujin doontaa dadaal laba oo siyaasadda ka qayb qaadan kara kastaba Axmed Madoobe wuxuu sidaas oo kala amray in magaalada laga fogeeyo ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada qaran ee militariga Soomaaliya kuwaas oo xilli hore la geeyay magaaladaas waxaana u muuqataa in ciidamadaas magaalada looga saaray in Xasan Sheekh Maxamuud oo amri karo inay qalalaaso ay abuuraan ama ay rasaas ku ridaan si uu muujiyaan magaaladu inay tahay magaalo xabadaha la iska ridi karo caqabada amnina ay ka jiri karaan wuxuu sidaas oo kale Axmed Madoobe sheegay in ammaankaasi buuxda loo adkeeyay ciidamadaasna halkaas la dhoobay waxaana arrinkan ay u muuqataa inay saameyn weyn ay ku yeelatay dhammaan dhinacyaduna ay gaareen ujeedooyin siyaasadeed oo ammaanku qayb ka yahay talaabooyinkan ayaana qayb adag ka noqon doona xalinta iyo tababarashooyinka haatan taagan si loo abuuro xal dhab ah taas oo siyaasad ahaan ka qayb qaadan karta sidaas oo kalena dadka qaarkood waxay u arki doonaan xalka siyaasadda iyo in arrintaas la qiimeeyo waxaana dadka qaarkood ay ka wada hadli doonaan xalka siyaasadda iyo in la gaaro dadaal loo dhan yahay arrimahaas ayaana qayb ka noqon doona faham siyaasadeed sidaas oo kalena waxaa la wada gaari doonaa talaabooyin siyaasadeed amniga oo qayb ka tahay waxaana sidaas oo kale laga wada hadli doonaa in si muuqata loo xaqiijiyo fahamkaas iyo siyaasadeeda si kastaba arrimahan ayaa u muuqda inay kaalin weyn ciyaari doonaan wadamada gobolkan ay kaga dhignaan doonaan xal siyaasadeed qorshahaas ayaana qayb adag ka qaadan doona natiijada saxda ah ee la wada gaaray sidaas oo kalena dadka qaarkood waxay u arkaan in xalkaasi muuqata dhinacyadu ay u wada gaari karaan isla markaana ay qayb adag ay u noqon karaan waxaana dadka qaarkood ay ka wada hadlayaan isbedeladaas inuu noqdo mid kamid ah talaabooyinka ugu dambeeyay xalka siyaasadda iyo wada shaqeynteeda sidaas oo kale waxaa la leeyahay xalkaas waa in la wada gaaraa sidaas oo kalena waxay tahay in la wada qorsheeyo waxaana si weyn looga wada hadlayaa in hannaankaas la wada gaaro waxaana si muuqata dhinacyadu isha ugu hayaan fursadaha iyo jawaabaha arrimahaasi ka dhalan kara laakiin arrimahaas si adag ay u saameyn doonaan xalka iyo siyaasadda iyo qodobada muuqda waxaana arrimahaasi ay xaqiijin doonaan faham buuxa oo ay tahay dhinacyadu inay gaaraan talaabooyinkaas ayaa ka dhigan mid kamid ah go'aanada saxda ah isbedelka iyo qiimeynta ay u leedahay dadaalkaas tanina waxa ay tahay mid kamid ah xalka siyaasadda wada shaqeynta iyo istaraatiijiyad siyaasadeed oo si buuxda ammaanka uga ciyaari kara kaalin weyn arrimahaas ayaan u muuqdaa inay saameynta xoojin karaan haddaba dadka qaarkood waxay leeyihiin hannaan siyaasadeed oo muhiim ah ayaa loo badan yahay waxaana dadaalkaas ay qayb ka qaadan doonaan natiijada saxda ah iyo isbedelada ay tahay in gobolku gaaro kuwaasoo fursad siyaasadeed noqon kara haddaba dadka qaarkood waxay u arkayaan Axmed Madoobe inuu ammaanka si gaar u adkeeyay isla markaana shirkaas uu muhiimadiisa siinayo waxaana magaalada ku wajahan madax kala duwan oo fuud kala duwan dalal kala duwan ka socda sidaas oo kale waxaa la qaadan doonaa ajenda siyaasadeed taas ayaana muhiimad gaar ah sii doonta waxaana si weyn loo leeyahay qodobadan waa inay noqoto mid kamid ah talaabooyinka saxda sidaas oo kalena waxaa loo arkaa in qorshayaashaas ay leeyihiin isbedel siyaasadeed ayaa qayb adag ka noqon doonta sidaas oo kale dadku waxay u arkayaan in xalkaas ay muhiim u tahay in dadaaladaas ay qayb weyn ka qaadato waxaana sidaas oo kale arrinkan u muuqataa isbedel siyaasadeed sidaas oo kalena la leeyahay qorshahaas ayaa qayb weyn ka noqon doona dadaaladaasna waxay tahay in isbedelkaas si sax loo wada gaari karo tanina qayb weyn ay ka noqon doontaa
go'aanada siyaasadda iyo fahamka la xiriira xilli dadka qaarkood ay leeyihiin isbeddelkaas ayaa ah mid muhiim u ah dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo wada shaqayntooda. haddaba dadka qaarkood waxay leeyihiin waa in la gaaraa sidaas oo kalena ay tahay in la wada qorsheeyo, hanaankaasna qayb weyn ay u wada tahay in xalkaas ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka ugu dambeeyay ee siyaasadda. sidaas oo kalena dadka qaarkood waxa ay ka hadlayaan natiijadaas in la wada qaato, dadaaladaasna ay muujiyaan aragtida siyaasadda, wada shaqaynta, xalka iyo muhiimadda ay leedahay in xalkaas la wada gaari karo, natiijadaasna ay qiimeyn weyn ay ku wada leedahay dhammaan dhinacyada. inkastoo ay taasi muhiim tahay, qodobadaas ayaa muhiim loo arkaa, waxaana si weyn loo wada gaari karaa dadaalada la midka taas ayaana qayb weyn ka noqon doontaa faham siyaasadeed oo ay dhinacyadu wada gaaraan. dadaalkaas ayaa sidaas oo kale maareyn doona caqabadaha muddo dheer soo jiitamayay, sidaas oo kale qayb adag ka qaadan doona dadaalka siyaasadda, amniga iyo sidaas oo kale in la wada qorsheeyo xalkaas iyo natiijadeeda. sidaas oo kale dadka qaarkood waxay leeyihiin in xalkaas la muujiyo ayaa ah qodobada ugu muhiimsan. tan ayaana si weyn u saameyn doontaa amniga iyo siyaasadda iyo in la gaaro dadaal loo dhan yahay. arrimahan ayaana qayb ka ah fursadaha siyaasadda ee isbeddelka. sidaas oo kalena waxay u tahay dhammaan in dhinacyadu ay qaataan tallaabooyin la xiriira isbeddelkaas. tan ayaana sidaas oo kale xallin doona in la wada qodobeeyo. arrinkaas wuxuu sidaas oo kale si weyn u saameyn doonaa dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo amniga, wuxuuna sidaas oo kale loo arkaa in shirkaasi uu yahay mid muhiima. madaxweynaha wadankaasi Soomaaliya ayaa isaguna isaga cararay magaalada Muqdisho maadaama culays badan uu dareemayo, wuxuuna haatan gaaray dalka Qatar halkaas uu kaga qayb galayo shir markaasi la sheegay in looga hadlayo arrimaha caalamiga taas oo dowladda Qatar martigelinayso, wuxuuna halkaasi ku qaabilay amiirka dalka Qatar. tan ayaa u muuqata in Xasan uu ka dhuumanayo fashilka iyo caqabadaha gudaha ka taagan, kuwaas oo si weyn u saameeyay xaaladda siyaasadeed ee gobolka jirta, iyadoo qayb ka ah natiijooyinka markaasi lama filaanka ee sida weyn u saameeyay xaaladda siyaasadeed ee haatan taagan. waxaana arrimahaas ay u muuqdaan inay qayb ka yihiin tallaabooyinka siyaasadeed, siyaasad xumada, faham darrada iyo go'aanada kale ee sida weyn loo saluugay ee halkaasi ka jira. taas ayaana qayb ka ah go'aano muddooyin badan soo socday. madaxweyne Farmaajo, Sheekh Shariif Xasan Cali Khare, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, maxamed xuseen Rooble, Saacid Sirdoon Saacid iyo xubno kale ayaa ku wajahan magaalada Kismaayo si ay uga qayb galaan shirkaas. meesha caalamka ayaa shirkaasi indhaha ku haysa, waxayna dalbadeen in arrimahaasi laga wada hadlo lana xoojiyo qodobada iyo go'aanada laga hadlayo si natiijadaas ay u noqoto qodobo si weyn isha loogu wada hayo, natiijo gaarana looga soo gudbiyo. inkastoo ay muhiim ahayd, haddana dadku si weyn ay u eegayaan xaaladan iyo natiijadeeda. arrimahaas ayaana qayb ka noqon doona go'aano muddo soo socday, taasoo si weyn u saameyn doonta xalka siyaasadeed ee amniga iyo siyaasadda. guud ahaan saaxiibayaal intaas waxaa nooga eeg wararka dhanka wararka tan intaa mar kale kulmin xagee tagaynaa sida ay nabadgeliyo ugu mahadsantihiin daawashadiina saaxiibayaal.